كسر دوادا مقالة على عدة dadka magaaladani ku nool waxay fursad u haystaan inay tagaan Kanada, Mareykanka iyo sidoo kale Yurub sababtoo ah qaxootiga dhinaca ku nool sii qaada oo hay'addu waxay sii kaysaa wadannada qaxootiga magan kaliya sida Mareykanka, Kanada iyo wadannada qaar oo Yurub ku yaala. Haddaba ku soo dhawaada magaalada Alcadee. qaxootiga ugu badani waxay yimaadeen markii ay burburtay dowladdii weyneed ee Soomaaliya. sidoo kale waxaa ku nool dad Oromo ah, dad Xamashiya iyo dad Eritrean ah, laakiin dadka ugu badani waa Soomaali. waa ka galabta maanta ku sugan magaalada Alcadee waa ka jawigu wallahi waa baraf waa ka nimcad ma sha Allah Alcadee wallahi aad iyo aad bay qowdahay insha Allah inaad ima doontii marjeynaya Alcadee صاحب حكنا جوجنا لك وبرتمها سوق مجالدا حكم مسلا مقالكين لوجا بلا مدنا صار كسان حكنا جوجنا وبرتمي سوق مجالدا على عدة سوق وسوق جوهري مجالدا لقد سميان بلقد السوق إنك سوق ما له كوري وسوق عصرية أي له كوري شالا كان واني سوتشتون صاحب يال اسكولada niga arkay ay ka dambeysay kan arkaysan iskoolkan waa iskoolkii sare kana waa iskoolkii hoose iskooladan waxa dhigta waa iskoolo Faransiisa waxa dhigta dadka localka ee magaaladan degan dadka magaalada degan laba u kala baxan dadna waa dad refugee oo qaxootihan maangaliyo miday dadna waa dad caadi oo wadanka Djibouti u dhasay hadaba dadka wadanka Djibouti u dhasay waxay dhigtaan iskoolada Faransiiska halka kuwa kale refugee ay dhigtaan iskoolada kale Ingiriiska saarkaysan hakani waa bartamihii magaalada dhinacan ay ku yaalaan waxyaabaha ugu badan bakhaarada iyo dukaanada ugu badan saarkaysan sidoo kale masaajidka ku yaala oo ah masaajidka ugu weyn magaaladan suuq aad iyo aad u mawino sababtoo xaafado kasta waxa iska leedahay suuq u kara laakiin suuqan waa suuqii ugu horeeyay magaalada hadda suuqan waa laga kuray oo suuq kale cusub ayaa jira shala kala mid soo jistoonaan mar صاحب الأسعار كسر هذا وحسوق عني سوق عصب مجال السوق اللي كان يسود سوي كسوق كورتي ويثبت شيء مجال صار كسر سوقا عصري أيا مجال هذا نقسمه آدي أيو قرب بدهي وسوق عصرية أوكي وركدون بدل آدي أدوين بس ما نسمع مجال هذا صاحب يال أورتنا أركسان تدب كاديد أهم استعماله وتدب لوجو سو سفر تجا مجالوين آدي هذا فربنا أيها كسي حوسيا مجالوين كأورتنا واحد كان عن حول يوحيابها قر كدبنا الراشين يوحصاص أي سيق قادن أركسان إلا مالها كلبت شنطة كلمني واحد مركي كان أي عباري دوران بورها دبدي يقول لك هذه كلمة دبل آديات باديوه أنت بدنك واحد كان عن رحوشة مركا كان يبينا واحد يفسدان آلاتي وبهيهين سدا بريس كشكرت يا حباس عصا ما دام لك أسبادي وتكاني وحالين حاجة ما كقطعن كدي بيسي كان مجال ده كشيء وحكو وأفكار غالي أدقشيء وحكو صاحب المجالات أفرت كنا
buura waxa kaga harareysan waa buuro waxaad aragteen meel ay afarta koona bad ka hareysan tahay magaalada afarta koona waxa kaga harareysan waa buuro buurahan waa silsilado saa ugu soo guursan dhammaan magaalada oo dhan waxaana luqa internetka waxaad ka aragtid magaalo ay afarta koona bad kaga harareysan yihiin maantana waa magaalo afarta koona ay buura kaga harareysan صاحب صار كسر هذا واحد جوا بيت كميدا بورياش أقول دادر يبور ولا لما وركنا صار كسر حقنا تجنا بور وحكتنا بس بور وحكسيتنا بس بور ودمان بقولنا أي كوهر رئيسين بورا أنا واحد كميدا بورياش أقول دادر يكوي دمان جبوتي هذا دحنتيو أبانا كدور هديو زوج لو عاديو سان waxaa loo yaqaanaa waa sidise waa koobta ay dhalinyartu ku ciyaarto kubadda dhinacaasha waxa lagu ciyaaraa qaybta basketka dhinacana hakeyga soo xigtana waxa lagu ciyaaraa kubadda caadiga ee cagta dhinacana hadda joogna waa triplinkii waa meeshii la fadhiisanay ee taageerayaashu ka daawanayeen sidoo kale meeshan waxa ku taala kaartiga afraad la yiraahdo waana mid kamid ah xaafadaha ugu shidan ee ku yaala magaalada galabta maanta ku sugan magaalada Alcadde waa ka jawigu wallahi waa baraf waa ka nimcad ma sha Allah Alcadde wallahi aad iyo aad bay qowdahay insha Allah inaad ima doontii rajaynaya Alcadde maxay magaalooyinka kale kaga duwan Alcadde waxay magaalooyinka kale kaga duwan tahay wallahi waa magaalo saddex qowmiyood soo dhaweysay marka Alcadde wallahi aad iyo aad ay u wanaagsan horta insha Allah inuu soo dhaweyn doonaa maanta xagee joogno way bienfini maanta ana ku sugan garoonkaas oo ah la yiraahdo sidisiyada normal ay iskaga ciyaaran wixii qaxootiga deegaanka waxa dhan la dhax gala doonaa hagaan joognaa way bienfini صاحب dadka qaxootiga ee dhinacan ku nooli waxay ka kala yimaadeen kadib markii ay dawladii weynadii Soomaaliya markay burburtay ay dadku waxa ka soo bixin kaliya doonta dadka Djibouti magaalada Alcadde ay dadka qaxootiga ugu faraha badan ee wadanka dhan magaalada ay ku nool waxa lagu qiyaasay 22 qaxootiga tirada korna way kordhaa hoos way dhacdaa sababtoo dadka magaalada u soo bixin kaliya doonta wala si kiyaa ka Mareykanka iyo Kanada iyo wadamada ayaa si qaata markii hoos u dhacdo markii kor u kacdo markii maanta dadka cusub sidoo kale dadka Itoobiya ka yimaadaan wadada Eritrea inay yimaadaan sidoo kale ayadu qaybna waa sida dhinacan waa dixda qoonaan bay ka soo xigaan qaybna waa inaga arkayo dixda qayb kala dhaxka ka soo xigaan inta nimka xidada uu roob doo ama dixdani way taas ku soo maro wadada magaalada ku dhow soo kale ku heshiin karaan soo dhinaciisa ay joogaan soo kale magaalada Soomaaliya kuma noolo wax ku nool dad Eritreana iyo sidoo kale dad Ethiopiana oo Oromo ah waa dad kala duwan oo kala jira kala faanaysta احترام قبائل وناك بنسكو أوكين